الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. waxaynu soo dhamaynay sanadii labaad ee hijriga waxyaabihii dhacay. sanadii saddexaad waxa dhacay duulimaadyo fara badan. waxa kamid ahaa ghazwatu qatafan, waxa kamid ahaa ghazwatu uhud, waxa kamid ahaa ghazwatu hamraa al-asad. uhud oo kaliya ayaanu dagaal dhacay. qatafan waxay ahaayeen carab is urursatay oo doonayay inay Madiina ku soo duulaan. dabadeetana rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo ciidan wata ayuu baxay, xagoodii ayaanu aaday. markay maqleen rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu soo baxay ayaa way yaaceen oo buuraha dushooda ayay koreen iyagoo muslimiinta ka baqaya. duulimaadka dhexdiisa waxyaabaha dhacay waxa kamid ah in rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu geed hoostiisa seexday, saxaabadiisina ay geedad kale hoos seexdeen. dadana rasuulku hurda ayaa waxa uu yimid nin dacthuur la oran jiray, isagoo seeftiisii sita ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam dul istaagay. markaasaa ninkii wuxuu yidhi, man yamnacuka minni ya muxamed, maxamedow yaa iga kaa daafacaya. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, allah. ninkii ayaa haybad dareemay iyo baqasho, deetana seeftii ayaa ka dhacday. rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuu seeftii qaatay ayaa wuxuu ku yidhi, man yamnacuka minni, adiga yaa iga kaa ilaalinaya. ninkii intuu argagaxay oo uu baqay ayaa wuxuu yidhi, laa axad, cidna igama kaa ilaalinayso. deetana rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu cafiyey. waxay sheegaan inuu ninkii islaamay, reer tolkiina ugu yeedhay inay islaamaan. waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah ghazwatu uhud. sanadii ay badar dhacday, sanadii ka dambaysay ayaa quraysh way soo baxeen iyagoo doonaya inay muslimiinta la dagaalamaan, sidoo kale doonaya inay u aargudaan ciddii badar lagaga laayay. tiradoodu waxay ahayd marka lagu daro dadka ay soo gaashaan buuraysteen 3,000 oo nin. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu baxay isaga oo 1,000 nin wata. markii dagaalka lagu sii socday ayaa cabdullaahi ibn ubay ibn saluul ayaa wuxuu dib ula noqday 300 oo kamid ah ciidankii. markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu jabal uhud gaadhay ayaa 50 saxaabi oo shishiyahan ah ayaa wuxuu saaray buur. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka dagaal galay buurta hoosteeda. 50 saxaabi ee buurta la saarayna waxay nabiga iyo saxaabada kale ka ilaalinayaan in dhabar jabin lagu sameeyo. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam saxaabada uu buurta saaray wuxuu ku yidhi, buurta ah ka dhaqaaqina haddii aanu guulaysano iyo haddii lana jabiyaba. deetana dagaalkii ayaa bilaabmay. qacdii horeba mushrikiintii ayaa lala fuqay oo la eryaday. deetana iyadoo ay muslimiintu guushii qarka u saaran yihiin ayaa waxaa dhacday in saxaabadii buurta la saaray ay iskhilaafeen. qaarkood ay yidhaahdeen, rasuulku arrinka ayuunbuu inagu adkaynayey, laakiin ciidankii gaalada ahaa wataa la jebiyey, aynu soo degno oo aynu khaniimaysanno. qaarkoodna ay yidhaahdeen, rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ina faray inaanaynu barta ka dhaqaaqin, arrinkuna adkayn keliya muu ahayne xeelo dagaal ayuu ahaa. almuhim saxaabada badankoodii buurtii way ka soo degeen. arrinkii rasuulkana sallallahu alayhi wasallam way khilaafeen, waxaanay ku mashquuleen in ay urursadaan furkii iyo waxyaabihii ay gaaladu ka yaaceen, iyadoo ay u malaynayaan inay muslimiintu guulaysteen. haddaba khaalid ibn al-waliid oo markaa ku jira ciidamada mushrikiinta ah ayaa wuxuu arkay buurtii oo aan cid badani saarnayn. deetana intuu xagga kale ka soo wareegay ayuu dhabar jabin sameeyey. saxaabadii buurta saarnaydna wuu laayay. dagaalkan uhud saxaabada badankoodii way jabeen. mushrikiintina waxay faafiyeen in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la dilay. dabadeetana halkaa waxaa ka dhacay jab kale, ilaa qaar saxaabada ka midii ay yidhaahdeen, maxaanu ku dagaalanaa haddii nebigiiba la dilay. qaarkoodna ay yidhaahdeen, wixii uu ku dhintay idinkuna ku dhinta.
haddaba dagaalka Uhud rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu sugnaa isaga iyo koox asxaabtiisa kamidihi waxa kamid ah Abu Bakar Umar Ali wa ghayruhum halka qaar kamidihina ay yaaceen rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa ku dhacay dagaalka dhibaatooyin fara badan laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku arsaaqay inuu sugnaado oo uu sabro waxa rasuulka sallallahu alayhi wasallam doonay inuu dilo Ubay ibn Khalaf rasuulku sallallahu alayhi wasallam eemo uu haystay ayuu ku dhuftay taas oo sababtay inuu halaagsamo rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam cidaan ka ahayn mudilin xadiisna waxa ku soo arooray dadka waxa ugu shar badan qofka nabi dila ama qofka uu nabi dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dagaalka waxa soo gaaray dhibaatooyin fara badan waxa dhacday inuu god ku dhacay mar oo rugagiisu ay dhaawacmeen dabadeetna uu miir doorsoomay mushrikiinta qaar kood dhagax ayay ku dhufteen wajigiisii ayay dakhreen dhooshiisii ayay jabiyeen dhafoorkiisii ayay dhaawaceen saxaabadii daafacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee goobta la joogayna waxa gaadhay dhaawacyo aad u fara badan dagaalkan Uhud waxa ku shahiiday 70 saxaabi mushrikiintana waxa laga dilay 23 mushrikiintii waxay sameeyeen inay ciiday laayeen ay bakhti wareemaan dagaalkan waxa ku dhintay Hamza amu rasuul sallallahu alayhi wasallam Hamza oo ah nabiga adeerkii waxaana dilay Wahshi laakiin Wahshi aakhirkii wuu islaamay islaamkiisina wuu wanaagsanaaday waxaanu ahaa ninkii dilay Musaylamatul Kadhaab rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad ayuu uga murugooday Hamza dilkiisii waxaanu faray in saxaabada shahiiday dhamaantood la aaso oo dharkooda lagu aaso haddaba markii ay muslimiintu ku soo noqdeen Madiina ayaa waxa ku dheeldheelay yahuudi meesha joogtay iyo munaafiqiintii waxaana yiraahdeen law kaanu indana ma maatu wama qutilu haday agteeda joogi lahaayeen manay dhinteen lamana laayeen qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin waxaad ku tiraahdaa nabi maxamedow naftiina ka daafaca geeri hadii aad run sheegaysaan sanadan saddexaad waxyaabaha dhacay waxa kamid ah inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inantiisii Kulthum u guuriyay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kadib markii ay ka dhimatay Ruqayyah sadradeed ayaa waxa lagu magacaabay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dhun-nurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa sababtuna waa taa aynu sheegnay oo wuxuu guursaday laba hablood oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u dhalay waxa kale oo dhacay sanadkan in rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu guursaday Hafsa bint Umar wuxuu kale oo guursaday Zaynab bint Khuzaymah al-Hilaliyah sanadkan saddexaad waxa dhashay Al-Hasan ibn Ali sanadkan saddexaad waxa la xaaraantinimay khamriga xaaraantinimayn go'an oo aan dib loogu noqonaynin waayo wuxuu waxyeelayaa aqliga iyo jirka iyo xoolaha iyo diinta iyo akhlaaqda intaba saameyn aan yareen ayuu ku yeelanayaa awwalul islaam khamrigu xaaraan mu ahayn laakiin xaalada ayuu soo maray ilaa markii ugu dambeeyay laga xaaraantinimay wallahu a'lam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك